السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أو وناكسن فيديوغا شرفت له إن قد جيسانيا دونك دعالديسا iyo waliba madasha 60 waraysiga kani wuxuu kaga imanaya waa madasha 60 waxa khadka si toos ah ugu jira siyaasi Maxamed Sayid Aadan oo jooga magaalada Kismaayo marka hore waxaan kugu soo dhaweynaynaa madasha 60 Maxamed Sayid Aadan salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waayahay kullay Kismaayo ayaad ku sugan tahay xaaladda Kismaayo naga waran Maxamed bismillahi rahmaani rahiim waan salaamayaa anigana dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka inta hawada uga dhageysanayso Kismaayo waa magaalo degan xagga ammaankeedana uu wanaagsan yahay haddii marka in laga reebo xaaladaha guud ee dalka Soomaaliya la wadaagto hadda intaanu ku sugnayn oo aanu shirkan u joognay in kala laba hadda magaalada aad iyo aad ayay degan tahay waana lagu wanaagsan yahay كلي وحسا نقول مقالة واحد سعودة شرر هذا دقو كلي ودودان شركة شيء محوية هاي هنا كشاف سيء فايتها ولا تدريش شركة وشر والله سعطان هذا بسمتكي معمول كشبلان إلا يحل يدي لصودا في سنة صودا في خلاص ربنا بكتشري وضبك وذدقن هبك أجاسك أي كتفنيين يقابك أي وحو صعدان shirka iyagaan wuxuu daba socdaa shirir hore oo aada la socotaan oo ahayd bal in laga heshiiyo wixii khilaaf ahaayoo jiray jubbalanta cusub oo haatan dhismayso oo si aada la socotaan madaxweynaha un la doortay oo baarlamaanka doorteen bishii agosto 15 sanadkan soo dhaafnay inta ka dambeysayna lagu jiray wadahadal iyo in la isqanciyo shirkii ugu dambeeyey oo lagu soo afjari lahaa khilaafaadkaas kadibna ummad isku niyada oo iswaafaqsan oo wax wadale oo isu kala tushay ay ugu wada shaqayn lahayd horumarkooda iyo ammaankooda shir looga golleeyahay weeye miduna Kismaayo hadda ku socday xaalad fiican buuna hadda meel fiican buu marayaa waayahay sida aan ognahay waxaa ka dhalatay dawlad la yiraahdo Jubbaland marka khilaafaadkaad sheegaysid ma qabiilka iskhilaafsan si dawladda iyo beelaha meelaha degan khilaafku waxa uu ka imanaya khilaafka habdhismeedka nidaamka systemka Jubbaland la yiraahdo iyo dadkii dhaliilsanaa habka ay wax u dhismeen waa arrintaas maaragtay arif waa taad u tahay waxa lagu kala gedisnaaba habka wax loo dhisanayo khilaaf soo jiitay buu ahaa آخرنا وكان كويشيني سنة كلا صعدة في الجيش السيدات شركة يجي دورو جذا كبعي وهذا كهرباء يوم ريفتين دور شري مدحوناها أفرطان سنة للدور تكهر الذي ما ممكن يلقاه كهاي تشبع وجذا فيها من لحليو وحيالها خلافات كه ولا كلا تبنيو معامل هو ذا منعسين هين الله بيسو marka siyaasiyiintii ka soo horjeeday habdhismeedkii maamulka Jubbaland ayaa looga golleeyahay iyo maamulka Jubbaland intay wada hadlaan waxay ku wada qanacsan yihiin inay meesha ka soo saaraan oo arrintaas ayaa lagu afjarayaa shirka iyagaan waxaana ilaahay ka rajaynayaa kii ugu dambeeyay noqdo meel wanaagsanna waa noo baxay waayahay sidaan ognahay barahiiraale wuxuu ka mid ahaa ragga laftigiisu khilaafsanaa dawlad goboleedka Jubbaland shirkana noogama dhex muuqdo maxaa qaldan bare waa raggii aan isku jaarka ahayn oo annaga aan isku fikirka ahayn aniga iyo waftigii aan hogaaminayay ee xagga siyaasadda kaga soo horjeeday Jubbaland ilaa haddana isku aragti baan nahay waa imaanayaan shirka maalmaha soo socdo waxaanu hadda annaga sii sameynay guddiyo farsamo oo ururiyo ama isku sii dabarido qaabka arrinta iyo waxa lagu heshiinayo iyo nuxurka qodobada ay tahay in la iska qanciyo oo Jubbalanta cusub ay fuliso marka uu bari maanaysa jirto oo laga dambeysay barana haddii ka soo qeybgalay haddii ka soo qeybgalin waa naga mid oo fikirka iyo aragtida aan isku midka ka ahayn horkeeda haddii lagu heshiiyo waa nin naga mid ah weeye oo arrinta nala waafaqsan sida ay wax u socdaan waayahay maxamedow saan ognahay dawlad ayaa la dhisay
idinku maxaad diidantihiin ma saami qaybsiga dawladda Jubbaland baa diidantihiin ma sidii loo soo asaasaa diidantihiin ma xildhibaanada si lagu qaybsadaa diidantihiin ma gobollada diidantihiin idinka ujeedadiina maxay tahay aad hadda sulugsantihiin si aad la socoto waxaa dhisan baarlamaanka dhisan oo 75 ah oo Jubbaland hadda u dhisan waad ogtahay inay cabasho kadib 10 xubnood in lagu daro la go'aansaday oo weli la meel marinin la fulinin laakiin baarlamaankana ay qodobkii fureen 75 ahaa dawladda Jubbaland iyo madaxweynaha Jubbaland ay soo jeediyeen cabasho baarlamaanka ka jirta oo loo baahan yahay in la iska qanciyo way jirtaa cabasho ama diidanaan xagga degmooyinka Jubbaland ay ka kooban tahay oo khilaaf ka taagan yahay in la xalliyo way jirtaa kadibna awood qaybsiga xukuumadda imaanayso iyo hay'adaha amniga iyo kuwa dakhliga iyo kuwa siyaasadda adigu waxaan doonaynaa wax aanu marka hore ku kala maqnayn raggii dhinacan ka soo jeedayna ay in badan maxay ahayd maqnaashaha iyaga darteed ay si kala u dhigeen annagana aanba fikirkaada diidanayn haatan haddaan isku aragti noqonnay in wixii khaldanaay oo dhan la saxo oo cid walba waxay xaq u leedahay haddii 100% aan ugu guulaysan karin la siiyo in qanaacad iyo tanasulaad laga helo oo 90% la qanciyo weeye eemka laga leeyahay shirarka istaba socdo oo meelo kala gedisan ka socdo muddo dheer wayahay maxamuud sayid aadan ayaamahan waxaa socday weeraro xagga cirka ah oo lala beegsanayay gobolka aadadu ka soo jeedid oo ah Gedo weeraradaas oo meelo badan dad badan lagu laayay xoolo lagu laayay ay madaxweynaha iyo waliba madaxweynaha Jubbaland intuba ay diideen in dad lagu laayay aragti ahaan adigu maxaad aaminsantahay runta horta dagaal baa socdo dalka dagaal baa ka socdo kooxa ayagana jiddiga jahasiyay oo annagana nala dad ah fikrad kalena ku shaqaynayo iyo ajnabi fara badan oo halkan gabaad ka soo dhigtay baa dalka dhibaato ka wado dagaallo culus baa daba ka dhacay waxyaalo fara badan baa ciidamada amisom khaasatan kuwa Kenya ka soo gaareen ayaga naftooda taa ka jawaabayo oo la dagaalamaya kooxahaas wax badan baa dadka rayidka ka soo gaaray hore waan ugu hadalnay marka waxaanu doonaynaa maadaama ciidamada iskaashano iyo dalal aanu derisnahay arrinta ay tahay in guddiyo farsamo la qabto xariirda la baaro wixii shacabka ama wax tacaddi oo dhacayna laga wada hadlo oo laga qanciyo dadkii ay arrinta gaartay waana ugu tacsiinaynaa intii ay wax yeelada ka soo gaartay laakiin arrinta madaxweynaha Jubbaland waa diiday in dad badan lagu laayay dadka deegaankana waxay leeyihiin dad badan ayaa nala ka dilay xoranana waa nala ka laayay isagoo madaxweynaha sibaan u ogeyn inuu Gedo dhibaatada ka dhacday iyo dadka lagu laayay runtii ama madaxweynaha federaalka ha ahaado ama midka dowlad goboleedka ha ahaado ama mas-uuliyiinta kaleba ha ahaato sida ay wax u dhaceen cid walba waa u caddahay waxaana la doonayaa sida ay wax u dhaceen ciddii ay dhibaato ka soo gaartay labadii dagaal oo u dhexeeyay ciidamada amisom iyo kan al-shabaabka in shacabka laga qanciyo waxaana rajaynayaa in arrintaas waftiyo kala gedisan loo diri doono lana taaban doono marka xilliyadaas ayaan ka hadli doonaa halka ay arrinta ku biishato haddii alla dido waayahay mar aanu waraysi ka qaadnay odayaal ka soo jeeda Gedo waxay noo caddeeyeen imaanay shirka aad hadda sheegaysaan aanay waxba ka ogen laganana tashan miyaysan laftigiinu beesha iyo gobolka aydan kala tashan shirka ka dhici doona Kismaayo horta shirku waxa weeyaan ajenduhu waa shir siyaasadeed siyaasiyiintii reer Jubbaland ee ka soo horjeeday nidaamka Jubbaland oo hadda dhisan iyo siyaasiyiinta hogaaminaysa nidaamka Jubbaland baa wada hadlayo haddii wadaxaajoodkaas lagu heshiiyo oo waxyaalaha annagaanu ku kala aragtida gedisaneen meel la saarana waa loo gudbi doonaa wejiyada soo socda dib heshiisiin ballaaran oo la isku cafiyo oo odayaasha dhaqanka ay ka qayb qaataan marka hadda annaga midkaanu ku jirno waxa weeyaan waa shir siyaasadeed wey waayahay sida aanu la soconno naloo sheegay Bare Hiiraale weli waa diidan yahay shirka waana ka soo horjeedaan adiguna sida aad caddaysay waa kugula socdaa marka shirka Bare Hiiraale ma iman doonaa Kismaayo mana ka soo qayb gelaya shirka si adiga ka wakiila runtii annaga taa ma hayno aniga maalmo ka horaan Kismaayo imid
hotelkii aniga aan deganaada aan shir ku galnay habka aan isu farsameynay iyo habkaan wax u nidin waa isloognahay waxaan marka aniga ku cadeynayaa shirkan inuu yahay shirkii ugu dambaysta oo wax lahaa khilaafka Jubbaland iyo dadkii wax wada lahaa oo wax isku diidanaa inuu noqon doono cid kasta iyo gabar kasta iyo qof kasta oo barnaamijkaas qaybka ahaana waxay ku qancaan ay kasoo bixi doonaan haddii alla yidhi waayahay maxamuud sayid aadan haddii laynii diido saami qaybsiga ama awoodaha haddii la qaybin waayo maxay tahay marka waxyaalaha kale aad samayn doontaa runtii horta waxaa la yidhi laba dhaxal isku haysata haddaa aragtid maxaa ka dhexeeya lama yidhaahdo ummadda wax ka dhexeeyaan iyo ummadda wax wada le inta badanba waa caadiyan inay wax isku qabtaan haddii arrinta annaga aanu isku hayno waxaanu rajaynaynaa marka koowaad inaanu annaga ka heshiino hadday kaa dhici weydo arrinta waxaa jiraya garsoor oo dawladda federaalka iyo beesha caalamkaba ka imaanayo marka waxaanu rajaynaynaa in si oo qancin leh oo si tanasulaad leh ay wax walba noogu dhamaadaan haddii alla diido waayahay maxamuud sayid aadan ayaamahan waxaa socday wax la yidhahdo 4.5 oo shirkii madasha wadatashiga la iskaga kacay puntlandna ay ka biyo diiday Jubbalandna ay tiri waan soo qaad sidoo arkaa 4.5 in ay Jubbaland soo qaadato laguna soo xulo xildhibaanada hadduu noqon doona dawladda federaalka ka mid noqon doona Robert saa la socoto Jubbaland madaxweynaha hadda jira Axmed Maxamed Islaan baa hogaaminayay annagana siyaasiyiintii Muqdisho joogay oo kala tashaday baanu ahayn saa la socotana ma ahayn rabitaanka Jubbaland in habka 4.5 lagu laabto laakiin mar haddii dawladdii federaalka ajendaha ay keentay beesha caalamkan ay ku taageertay Jubbaland arrinta sida ay ugu gaabsatay sidaasay ahayd waana og tahay inuu weli wadahadalkii socdo oo arrintaasu aan muddo lagu jarina ay weli jaanisyo fara badan dhiman yihiin marka laakiin mabdiyan annaga waxaanu ahayna dadka aaminsan in hab deegaan ah arrinta bal lagu dayo maadaama in badan habkaa formulahaas wax lagu soo qaybinayay dawladnimadana ay hoos u dhaadhici weyday waxaana la yidhi wax isqaban waayo haddaad aragto ama waxaan meesha ku jiro bay cidu soo gelisaa ama wax meesha ku jiro bay cidu ka saartaa marka waxaan u arkayay aniga iyo raggaan isku aragtida nahay in arrintaasu ay tahay inba laga wareega formalihii ama modelkii 4.5 oo loo wareega habkaa kale haddana waad ogtihiin oo Soomaaliya dawlad federaal bay leedahay walow dawladdaas haddana aan ku dhaliilayno inay inta badan u jilacsan tahay dawladaha kale oo beesha caalamka oo na kaalmeeya aragtidooda mar hadday dawladdii soo dhigtay madaxdii marka ay isu timidna wax ku heshiin waayeen beesha caalamkana ay tiri waa ku taageernay sidaas ayay ila tahay in looga gaabsaday Puntlandna xaq ayay u leedahay inay iyada mowqifkeedii difaacdo waan og tahay duruufaha ku kala xeeran deegaanada kale oo koonfurta Soomaaliya iyo Puntland uma tashatay oo ayada ammaankeeda iyo horumarkeeda gacanteeda ku haysatay weeye haddii deegaanada kale maamulada ka jiraan waad og tahay oo inta badan shisheeye waxay yidhahdaan annaga gacan idinka siina amaankii annaga idin waardiino annaga waxa idin la wadno marka madaxda marka ka jirta maamuladan kale ama dawladda federaalka inay u jilacsanaadaan aragtida shisheeyaha marka taas ayaa ayna saldhig u noqonaysa kastaba ha ahaato arrintaasu marka kuwa khilaafayna annaga markaa mas-uulkii noo matalayay sistamka Jubbaland oo ka qayb galay shirkaas sida uu u arkay arrintaas waayahay maxamuud sayid aadan kolley siyaasi baa tahay xildhibaan baad soo noqotay wasiir ku-xigeen ayaad soo noqotay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka ay wuxuu had iyo jeer sheegaa in dowlad goboleedka ugu dambeeya ay noqon doonto hiiraan sida aad og tahayna ay maakhir iyo khaatumo ay ka horreeyeen sidee u aragtaa in maakhir iyo khaatumo la yidhaahdo ma soo samaysan karaan dawladda federaalka ayna iska dhega jirto arrintaas sidee u aragtaa maxamuud sayid aadan horta anigu wasiir buuxaan ahaa wasaarado kala gedisan baan soo qabtay xildhibaanna waa ahaa madaxweynihii ugu dambeeyey koonfur galbeed 6 gobolna waa ahaa oo u tanasulay aragtidii markaas ka hortimid markaan saa saxo tiitalkaas midtaan aniga waxaan u arkaa dawladda federaalka Soomaaliya inayna
si saxan ula dhaqmin maamulka khaatumo iyo maaqan inay si saxan ula dhaqmin baan u arkaa ummadaas inay oo waxay rabto samayso oo ku aqoonsadaanna inay diideen ayagoo markaas ilaalinayo maamulo kale oo kasoo horjeeda fikirka ay ummadaas mar walba iyada ay qaadanayso marka dabcan waxay xaq u lahaayeen in wixii ayaga ay dhisteen la aqoonsado laga tixgeliyo talada socoto marka taas ayay lahaayeen xaq uma ay lahayn in la inkiro oo dadyow kale ama maamulo kale oo aragti isku hayaan looga heliyo marka anigu ra'yigan ka qabataa wey waayahay gunaanadkii maxamuud sayid aadan maxaa dadka soomaaliyeed oo ku dhegaysanaya iyo dadka haddaba ku dhegaysanaya aad kusoo gunaanadaysaa waxaan anigu ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa inay iscafiso bal la yidhaahdo war intii rubac qarniya ka badan bay xaaladdeena halkaasii maraysaa dalka iyagana dawlado kala gedisan interesyo kala gedisan leh dana kala gedisan leh ayaa maxay ahayd faraha kula jiro xagga kale arrin magaranaysaa aanu caado ulahayn oo dad isqarxinayo oo ayagana ishalaagayo ummadina halaagayana waa nagu leeyihiin marka waxaan ku talin lahaa bal inaan diiradda saarno inaan iscafino isu tanasulno qof walbana uu xagga wanaagsan u fikiro bal sidee soomaaliya qaran sharaftii ummadda soomaaliyeed iyo kale u heshaa sidee soomaaliya shirqoollada siyaasadeed ee caalamka ugu imaanaya iyo dabinada shisheeyaha ay ugu gudubtaa inay sidaa ummadda bal u fikiraan qof walbana contributionkiisa ama maxay ahayd inuu dadka wax ku taro inuu isku dayo oo xaaladda maanta ay tahay xaalad u baahan gurmad in soomaaliya ay qaran hesho qof walba nin kasta iyo gabadh kastana ay isu xilsaaraan baan ugu baaqi lahaa waayahay kaasi wuxuu ahaa siyaasi maxamuud sayid aadan oo jooga magaalada kismaayo halka aad ka dhegaysanaysaan waa madasha 60 xiriiriyaha waa sadna suudi iyo anigoo ah yaasiin ducaale waxaan kaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu